laga heli karaa dunidan maanta zawjad sidaan raaliyad u ah nin baa wuxuu go'aansaday inuu guursado xaas labaad wuxuu ka yara fakiray qaabka zawjadiisa hore u sheegi lahaa wuxuu hor istaagay zawjadiisa wuxuu ka hor dhahay ma samayn wax xaraam iga ah rabbi ayaa ii fasaxay zawjadiisii ayaa fahantay ujeedada hadalkiisa waxayna ku dhahday ma tahay mid ku dhaqanta diinta rabbi su'aashii ayaa la yaab ku noqotay wuxuu ugu jawaabay haa iyadoo dhoola cadeynaysa ayay ku tiri ilaaheed u tala saaro hana kuu barakeeyo guriga ayuu ka sii baxay isagoo la yaaban hadallada zawjadiisa xilligii habeenkii ayuu soo daahay isagoo la fikirsan hadalladeedii wuxuu ka soo laabtay guriga wuxuu arkay xaaskiisa oo ilmeynaysa wuxuu si hoose isku dhahay wixii aan ka baqayay ayaa soo baxay way kari weysay in ay murugteeda ii muujiso markii hore wuxuu ku dhahay ma waxaad la tiiraasan tahay in aan kula guursan doono qalbiga degso wixii aad maanta igu tiri ayaa iga yaabiyey taasna waxay siyaadisay qiimaha agtayda ka leedahay adigoo kale sideen ku heli karaa mid aan adaga ahayn raali kuma noqonayo in aan nolol la wadaago waxay ugu jawaabtay iyadoo ilmeynaysa alla baan ku dhaartee taas lama oonayo wuxuu ku dhahay haddaba maxaa kaa oohinaya waxay ugu jawaabtay waad iga soo dahday xoogaa ilaa aan sagay in aan u dhinto walwalka aan kaa walwalaa in dhibku soo gaaro raggow u dhimriya oo u naxariista xaasaskiina hana cidlaynina ha ka ilmaysiinina ugu walwala sida idinkaga walwalayaan ugu taxadara sida muraayad loogu taxadaro inay jabto